wanaagsan asxaabta halkaad nagala socotaan waa champion Somali Sports maalin kasta oo isniina waxaan idiin soo gudbinaa barnaamijkeena ciyaaraha aynu ku faaqidi doono kulamadii la ciyaaray toddobaadka xubnaha aynu soo qaadan doono waxaa ka mid ah kooxda Real Madrid oo gooldirqa ka gaadhay kooxda Granada inteena labaad waxay noqon doontaa kooxda qaranka Senegal oo xalay ku guuleystay koobka qaramada qaaradda Afrika inteena saddexaad waxaanu soo qaadan doonaa kooxda Barcelona oo maalinkii shalay ahaa gaadhay guusha ugu weyn toddobaadka inteena afraadna waxay noqon doontaa kulamadii laga ciyaaray waddanka Ingiriiska ee FA Cup natiijooyinka ay kala heleen kooxaha saxaabta si aad ula socotid wararka ciyaaraha ku xidhan channelkeena Champion Somali Sports subscribe kana saar wanaagsan asxaabta qaadana xubinteena koobaad kooxda Real Madrid oo ayaa xilli dambe fakatay kooxda Real Madrid ayaa guul dirqi ah ka gaadhay kooxda Granada kulan ay marti ugu ahayd guriga kooxda Granada kulankan ayay kooxda Real Madrid guul dirqi ah kaga fakatay kooxda Granada ciyaaryahanka Marcos Asensio ayaa wadada guusha ku hogaamiyay kooxda Real Madrid waxaana uu shabaqa soo taabtay daqiiqadii 74aad kooxda Real Madrid ayaa waxa ka maqnaa daraasin ciyaartooy ah guushan dirqiga ah ee gaadhay kooxda Real Madrid ayaa waxay ku hogaamisay inay dheeraysato hogaanka horyaalka Spain ee La Liga kooxda Real Madrid ayaa haatan hogaanka ku haysa 53 dhibcood halka kaalinta labaad ay ku jirto kooxda Sevilla oo leh 47 dhibcood qaadana xubinteena labaad xulka Senegal ayaa wuxuu ku guuleystay koobka qaramada qaaradda Afrika habeenkii xalay ahaa xulka Senegal ayaa markiisii ugu horeysay ku guuleystay tartanka koobka qaramada qaaradda Afrika iyagoo gool kulaad ku garaacay waddanka Masar gool kulaadyada ay xulka Senegal ku badiyay 4-5 gool ay kaga adkaadeen xulka Masar sidan oo kale ugu guuleysan tartan noocan oo kale hore ugu guuleysanin kale ciyaaryahanka Sadio Mane ayaa u dhaliyay gool kulaadka ay ku badisay xulka Senegal xulka qaranka Masar xalay tolo wax kubadaha isku keenin oo waxaaba la oran karaa xulka Senegal ayaaba maamulaya 120 daqiiqo ee la ciyaarayay ciyaarta Senegal waxaanu leenahay hambalyaanu leenahay xubinteena saddexaad kooxda Barcelona ayaa gool ballaaran ku gaadhay gurigeeda ciyaartan ayaa kooxda Barcelona ku ciyaaraysay 10 ciyaaryahan markii kaarka cas looga taagay ciyaaryahanka Daniel Alves daqiiqadii 69aad kooxda Barcelona ayaa gool lagaga hormaray waxaana kooxda Atletico Madrid ay dhalisay daqiiqadeedii 8aad waxaana uu dhaliyay ciyaaryahanka u dhashay waddanka Belgium-ka Yannick Carrasco kooxda Barcelona oo baryahan dambe kubadeedii lagu yaqaanay la soo laabatay ayaa 4 gool oo darandoori ah ugu jawaabtay kooxda Atletico Madrid kooxda Barcelona ayaa daraasin ciyaartooy ah la soo saxeexatay dhawaan qaadana xubinteena afraad kulamadii laga ciyaaray waddanka Ingiriiska ee FA Cup-ka kooxda Liverpool ayaa Cardiff City ku garaacday 3-1 saddexda gool waxa kala qaybsaday ciyaaryahanada Jota Minamino iyo Elliot dhanka kale kooxda Chelsea ayaa ciyaar ay la ciyaarisay Bournemouth ay ku soo ilaatay 1-1 balse gool kulaadyadii ayaa kooxda Chelsea ku soo gudubtay dhanka kale kooxda Manchester City ayaa 4-1 ku garaacday kooxda Fulham dhanka kale kooxda Manchester United ayaa tartanka gabi ahaanba laga cirib tiray kadib kulan ay gurigeeda kula ciyaaraysay kooxda Middlesbrough kooxda Manchester United ayaa 1-1 la dhaafi weyday 120 mar la ciyaarayay kooxda Middlesbrough balse waxa la isla tagay gool kulaadyo kooxda Manchester United lagaga adkaaday 7-8 gool kulaad taas waxayna ku soo idlaaday barnaamijkeena ciyaaraha toddobaadkan fadlan saxaabta halkan kala soco wararka ciyaaraha